السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لايك maanta waxaad doonaysaa noloshaada hadafiyaasha badan aad leedahay sidaad u gaar lahayd kaba soo qaad sida hadafiyaasha adduunkaaga u gaar lahayd sida hadafiyaashaaga aakhiro ama ilaahay u raaligelin lahayd baad is weydiinaysaa maanta waxyaabahaana waxa ku fududaynaya sidaad u gaar lahayd si fudayd hadafiyaashaadana waa cilmiga weyn ama waa garashada ku leedahay hadafkaaga sidaad u gaar lahayd maanta kaba soo qaad haddii aad doonaysid aakhiro waa intaad baratid waxyaabaha ilaahay la raaligeliya iyo waxyaabaha ilaahay ka raacalaysiya haddii adduun aad doonaysid inaad gaadhid aad lacag ku yeelisid adduunka waa intaad baratid waxyaabaha kuu fududaynaya ama dariiqa kuu fududaynaya sidaad u gaar lahayd hadafkaaga adduunka marka waxaad arkaysaa qofku ka cilmi badan yahay uu ka dadaal badan yahay dhinaca cilmiga ayuu uga dhow yahay sida hadafkiisa u gaarana marka adigay daawanay walaalkayo imse waqti baad ku bixisaa sidaad wax u baran lahayd imse waqti baad ku bixisaa sidaad u baran lahayd sida wax loo barto imse waqti baad ku bixisaa sida maskaxdaada uga shaqaysid si fiican maanta qofka hadduu waxa uu garata leeyahay amba cilmigiisa ku dadaalin haba yaraatee waa sidii qof bulmudow ku nool waxba kala arkaynba waxa ku fiican waxa xun iska socdo bas adigu ma waxa doonaysaa madow intaad ku noolaatid in العلم نور يهتدي به لمن أراد العلا maanta wax marka adduunka kaa leeyahay waxaad u baahan tahay inta isticmaashid diirad sidii qof kale saar lahayd wuxuu koray cilmiguna maanta waa sidaa weeyaanoo waa diiradaad ku kala arkaysid wixii aan markii hore fahamsanayd waa diirada ku kala saaraysa aad si fiican ugu arkaysid wixii markii hore jaahil ka lahayd waa cilmigu waxa weeyaan waa nuurka adduunka ku iftiiminaya si fiican u arkaysid wixii xumaaya wixii fiican maanta markaad aragtid waddanada adduunka horumaray maaha waddanada khayraadkoogu ama khayraadka dabiiciga haysta waa waxa weeyaan waddan kasta wuxuu ka horumarsan yahay waddanka kale markuu u geliyo dadaal badan cilmiga ama dadkoogu sidii wax u baran lahayn jahliga ugu saari lahaa marka adigay daawanay walaalkayo imse waqti baad gelaysaa sidaad cilmiga u baran lahayd cilmiga waxaad doonaysid adduunka ha noqdo ama aakhiro sidaad u baran lahayd imse waqti baad gelaysaa sidaa maskaxdaada aad u fahmi lahayd siday u shaqayso siday wax u xafido siday wax u barato degdeg imse waqti baad gelaysaa channelkan youtube-ka waxaan ka sheekaysan doonaa waxyaaba saxay waxaan ka sheekaysan doonaa sidee loo isticmaalaa maskaxdaada sidee wax u xafidi lahayd degdeg wax u baran lahayd degdeg dib u isticmaali lahayd degdeg waxaay oo dhan waa ka sheekaysan insha allah diyaana haddii insha allah aaladda maskaxda si fiican u fahamtay sida u shaqayso ama si fiican u isticmaashidna waxyaabo badan baa baranaysaa marka wax badan baratidna dadku waa ka horeynaysa maanta adduunka qof kasta oo qofku ka horeeyo waxa weeyaan qofku ka cilmi badan yahay unbaa kaa horeynaya marka insha allah ilaahay dad cilmiga naga dhigo dad waqtigooga ku dadaala sida cilmiga baran lahaayeen marka channelka subscribe waxaan insha allah videoyaasha soo socda waxaan maga sheekaysan doonaa intaa ka sokona waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh